وأشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. mucjisooyinka ilaahay uu koonkan ku umeeya waxaa ka mid ah gabadhan yar magaceeda la yiraahdo Xafsa Maxamed Xasan in ay indhaheedu quraarado ay ka soo daadanayaan iyagoo aan wax mushkilada ku hayn. quraaradahan ayaa Xafsa waxay sheegtay in xilliga eedo ilmo dareemaan sida aad arkaysaan isheeda ay uga soo dhacayaan iyadoo ay wax dhibaato aysan ku hayn. dhakhaatiir badan la mariyay oo mid ka mid ah suxufiyiinta wareysanaysa ay gabadhan xaaladda wax ka ogaadeen ayaa waxay sheegeen in dhakhtar kastoo la mariyay aysan wax dhibaato aysan ku hayn lana garan karin meesha ay hawshan ama quraaradahan tirada badan la gacanta ku haysaa ka imaanayaan. tani waa subxaanahu wa ta'aala la xidhiidha calaamadaha ilaahay ku tusiyo aadmiga quwadiisa ah. quraaradahan ama dhalooyinkan ayaa sida la sheegay ama uu ninkan wariyaha aad arkaysaan uu kaga hadlayaa uu sheegay xitaa ay quraaradan mar lagu eegay jiritaankeeda ama afkeeda la sheegay in xawliga quraaradaha kale ay ka quwad badan tahay kana adag tahay xilliga isheeda ka soo dhacayaan aysan wax dhiba aysan ku hayn. inanta yar oo u dhalatay wadamada carabta ah ayaa ilaa yaraanteedii xaaladan ku jirtay ilaa haddana wax isbedel aysan ku hayn. waana arrin argagax leh markaad eegto muuqaalkan la yaab kale iyo quraaradahan ay gacmaheeda ku haysato iyada ay ilmadu ka timaado indhaheeda waxay isu bedelaa quraaradahan oo ka soo daata. xaaladan oo sida uu waalidkeedu wax laga weydiiyay ama suxufigan sheegay waalidkeed ku soo koobayna tahay arrin mucjiso noqotay oo meel walba mariyeen. arrintan uu ku soo koobay subxaanahu wa ta'aala calaamadihiisa ana mid dadka looga baahan yahay inay kuwa ay arkaan ama wax ku qaataan calaamadahan ilaahay qomkiisa uu ku uumay ee waadmigiisa ku tusayo awoodiisa. ishaas aad arkaysaan quraarada inta leeg ayaa ka soo dhacaysa. soo gabagabaynayna subxaanahu wa ta'aala isaga awood badan wax kastana awooda. billahi tawfiiq.